السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وعن ونكسن صاحب يال سود هذا مقالكينا waxaan uga hadli doonaa shan aad u baahan tahay noloshaada inaad ku dabaqdid si aad u xaqiijin guulo badan ama aad u noqotid qof waxyaabo badan ay u firgalaan. intana muuqaalku guda galin fadlan ugu cusubtaan u soo biir muuqaalkii noo la garay shirta ka ilaa qaybta comment ugu rab wixii fikirkaaga mahadsanidin. number 1 sabirka iyo dulqaadka qofka la yimaado ee ku dadaala noloshiisana ku dabaqa waxyaabo badan ayaa u firgalaya. inaad sabir yeelatid dantaada ayaa ku jirto maxaa yeelay qofku marka uu yahay qof dulqaad leh oo sabir leh waxa u fududaanaya dhowr shay. number 2 shaqo adag. inaad noqotid qof shaqeynaya oo si adag u shaqeeya oo waxyaabo badan noloshiisa ku dabaqa shaqadiisana aad uga soo baxa oo noqdo qof si adag u shaqeeya waxay kuu fududeysaa inaad noqotid qof ka maarma ibni aadanka. shaqooyinka aad bay kala duwan yihiin. mid waxay noqotaa midka ganacsiga oo waxay noqotaa inaad alaab gadid lacag shaqeydid. midna waxay noqotaa inaad noqotid qof waxbarashadiisa si adag ugu dadaala. shaqo sideedaba waa inaad wax qabatid. number 3 aadaabta ama akhlaaqda inta badan waa waxa aasaaska u ah qofka noloshiisa ama shakhsiyadiisa. qofkan noloshiisa iyo shakhsiyadiisa waxaa lagu qiimeeyaa aadaabtiisa ilaa heerka ay gaarsiin tahay. haddii aad tahay qof akhlaaq leh sharaf leh dadka afkiisa iyo adinkiisa ay ka nabad galaan waxaad noqon doontaa qof aadaabtiisu dhammaystiran. sadarteed aadaabtaada ama akhlaaqdaada waxay kuu fududeyn doontaa ama kuu hirgelin doontaa inaad waxyaabo badan aad ka xishootid oo aad u aragtid waxaan kuu wanaagsaneyn. number 4 joogteynta. shay inaad bilaawdid joogteydid waxa ay kaa saacideysaa inaad noqotid qof noloshiisa waxyaabo badan u hirgalaan. shayga aad bilowday yuusan noqonin wax xiise ah. xiisaha waxaa la yidhahdaa shay laba beri inta la qabtay kadibna la nacay. laakiin qofka shaygu markuu joogteeyo oo shayga ka dhigto caado oo qofka shaygaas noloshiisa oo kale ka dhigo oo noloshiisa ku dabaqo qofka shaygaas wuu ku guuleystaa. maalin waxay u noqon doontaa maalinka farxadiisa ama maalinka guushiisa. number 5 kalsooni nafeed. inaad tahay qof noloshiisa ku kalsoon aaminsan inuu wax qabsan karo aaminsan inuu ficiisa la tartami karo aaminsan noloshiisu inay tahay mid sareysa waxaa kuu suurtagal ah inaad mar walba noqotid qof heer sare gaara. qofku markuu yahay qof isku qanacsan laabtiisu furan tahay fiyow noloshiisa aaminsan inay tahay mid fiican waxaad noqon doontaa qof inta badan noloshiisu ay toosto. balse qofku markuu uu yahay qof waxyaabo badan noloshiisa ay ku dabaqan yihiin kalsooni la-aanta inuu aaminsan in noloshiisa ay tahay mid mar walba ciriiri ku jirta midaan wax qabsan karin mar walba uu aaminsan yahay inuu yahay waxaa u fududaata qofkaas inuu noqdo qofka ugu faashilsan uguna guuldarada badan dhanka nolosha markii loo eego. sadarteed waxaad u baahan tahay mar walba inaad noqotid qof ka fog xumaanta baqtiga balaayada si aad uga badbaadin niyad-jabka waxaa keena dambigaaga oo bata waxaa kaloo keena hawshaad qabanaysid oo aan ahayn mid joogta waxaa kaloo keena dulqaad yarida waxaa kaloo keena inaad noqotid qof aan aadaab lahayn. sadarteed mar walba waxaad u baahan tahay inaad noloshaada ka dhigtid midaad ku qanacsan tahay. shantaas shay waa isku xiran yihiin. haddii aan ka bilaawno dhanka shaqada samirka joogteynta aadaabta iyo kalsooni nafeedba shantaasi waxay aas-aas u yihiin noloshaada. shantaas haddaad la timaadid in badan oo noloshaada way toosi doontaa waan kaa hubaa insha allahu tacaala. waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax uun ka faa'iiday fadlan ka mid noqo walaalaha halkan aan ku midownay hada billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.